Dalada Kaaba ay ku midaysan yihiin gabdho isku taagan siday u caawin lahaayeen dadka danyarta ayaa waxay wax badan ka bedeleen nolosha qoysas danyar ah iyagoo bishii barakeysneed ee Ramadaan iyo Ciidul Fidriga ay aad uga shaqeeyeen siday u afurin lahaayeen isla markaasina u ciidsiin lahaayeen carruurta danyarta ee aan awoodin waalidiintooda inay ka farxiyaan haddaba howlahaasi oo dhan iyo waxqabadkoodii waxa ay ku soo bandhigeen munaasabad ay qabteen shalay galinkii dambe munaasabada waxaa ka soo qayb galay ganacsato aqoon-yahano iyo xubno ka socday baarlamaanka Jubbaland iyo marti sharaf kale sidoo kale munaasabadan dalada Kaaba ay qabatay waxay shahaado sharaf guddoonsiisay dadkii kala soo shaqeeyay arrimaha caawinta walaalaha danyarta qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa u mahadceliyay dalada Kaaba gabdhaha waa amaanaya waliba waqti yar oo ay shaqeynayeen waxaan dareemaynaa in ay soo jiiteen dad badan oo qeyrka jecel oo ay u horseedeen inay sadaqa la soo baxaan waliba gacan aamin ah marka ay kula wareegaan xaqiiqatan marka laga shaqeynayo howlaha tabarucaadka waxay u baahan yihiin marka hore inaad Rabbi subxaanahu wa ta'aala isku xirtid amaanadaas qofka muslimka ah ee aan ku garanayno ku soo dhiibayeen adiga iska bariyeeshid thumma qofka loo soo diray aad u xafidid si wada fiican ay ugu baxaan marka waa amaanaya gabdhaha dhamaantiin waxaad leenahay qeyrka ha laga shaqeeyo waxaan aad u bogaadinayaa isxilqaanka iyo daladan Kaaba ee arinta firfircoonida leh iyagoo muddo dhow la aasaasay haddana inay kaalin intaas la ka qaataan bulshada oo ay waxqabadka saas u muuqda ay muddo yar oo kooban ku qabtaan waa arin u baahan bogaadin Bashir Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada u qaabilsan baarlamaanka Jubbaland oo munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyay hablaha ku midaysan dalada Kaaba dadaalkooda ku aadan horumarinta bulshada iyo caawinta dadka tabarta daran runtii gabdhaha waan bogaadinayaa dadaalka ay qabteen haweenka Soomaaliyeed saad u socotaanba waa laf dhabarka bulshada weeyo burburkii Soomaaliya marka dalku uu burburay dagaalada sokay dhaceen waxa kaalinta muhiimka ka qaatay badbaadinta ubadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waxay ahaayeen ururka haweenka Soomaaliyeed oo sidaan oo kale to soo qaban qaabay ama soo xil saaray aad baan kaga mahadcelinayaa waxaan leeyahay horta dadaalkiina wada waligeena hanay jabino gudoomiye ku-xigeenka dalada Kaaba Sahra Bishaar Cabdiraxmaan ayaa u mahadcelisay dadkii ka soo qayb galay munaasabadani ay caawiso walaalaheena masaakiinta aan awoodin in ay wax qabsadaan dalada bisha soonka ahayd ayaa waxa ay qabatay in ay afuriso ku dhawaad 55 qoys oo aan awoodin in ay afuraad ama waxa ay ku afuri lahayn ay haysan sidoo kale dalada waxa ay ciidsiisay 85 caruur ah oo aanan waalidiintooda awoodin in ay caruurtooda ka farxiyaan ama ay ciidsiiyaan waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo garab naga siisay ama na garab istaagtay maalmahaasi ee aan caawinayna walaalaheena sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo garabkeen istaagtay hadii ahaan lahayd social media iyo si dad bamba noola shaqeysay Najm Ismaaciil Yusuf warbaahinta Jubbaland Kismaayo